السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال دمانتي بسودو هذا ونقو أي وحرجينا إنه مركز نوصل لابتو إن شاء الله حسن واكاسا هذا هنا مركز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن واد محسن تهي وكسودو وينيا إن حسن شهر حراد وقدوميها حزب الديمقراطية جيبوتي. حسن هذا ودي بتجوك وفدقي سوا مالك بحسن جيبوتي. حسن وكسودو وينيا مركز هوري. waad salaamantahay Axmed nidaa waqaca waan ku salaamayaa waanad ku mahadsan tahay fursadan aad siisay waraysiga waxaan ku suganahay dalka Switzerland waxaan gudoomiyaha xisbigan dimuqraadiga ee Djibouti waa xisbi mucaarada oo ka jira dalka Jamhuuriyadda Djibouti xisbigaasi wuxuu imika mas'uuliyiintiisu waxay ku wada sugan yihiin xagga dibadda dalka ayay ku sugan yihiin gudaha dalka ma joogaan badankoodu saad isku ogtiina wadanka Djibouti maamul waxa ka jira keligii talisa oo qawleysata ama lagu tilmaami karo marka ma fududo inay xisbiyada mucaaradka ee Djibouti ay gudan karaan mas'uuliyadoodii ama xilkooda ka gudan karaan iyagoo gudaha dalka jooga marka xisbiga iyaga wuxuu ku sugan yahay dalka dibadiisa sida xisbiyada badankoogaba mucaaradka Djibouti badankoogaba marka anu waxaan joogaa anu xisbigan gudoomiyaha xisbigana waxaan joogaa dalka Switzerland marka waxa tahay gudoomiye ama koox mucaarada oo dibad joog ah oo aan xarumo ku lahayn wadanka Djibouti sax maxaad soo kordhin kartaa ayaad isleedahay haddii aad dibad joog tahay Switzerland dawladda Djibouti kama shaqeyso dadka Djibouti ayaa loo baahan yahay in la samabixiyo wax loo qabto waxa aad hadda sheegayso haddii ay jiraan marka ma isleedahay adinka oo dibad jooga waxbaad qaban kartaan anagoo dibad jooga wax badan baan qaban karnaa marka gudaha la joogo iyo marka dibadda la joogo waxaad moodaa inay imika wadanadan ay keligii talis ka jiro inay fududahay marka la joogo dibadda la joogo inaad wax badan la qaban karo oo ay aad u fududaad moodaa taana waxa ku daliila horta wadanka gudihiisa laguma shaqeyn karo oo waxa ku yaalay waa xabsi hadaad runta sheegtid ama wixii jira aad ka hadashid ta kale maxay hayday dibadda waxaad haysataa maxay hayday fursado badan sida aaladdan internetka maanta aan ku wada hadlayna inagu wadankii fursad uma haysatin inaad ku isticmaali kartid si free ama xor ugu isticmaali kartid sababtoo ah waxa dhacaya maamulka meesha ka jira markaad waxyaabo dhaliila ama khaladaha ka sheegtid waa laga jaraya waa laga goyni ama waa laga joojin khadka marka maxay hayday jaraa'id xora ma jira Djibouti oo jaraa'id quraato oo dawladdu leedahay baa jira jaraa'id kale waa la diido xora oo mucaaradku ay leeyihiin ma jira Djibouti idaacad xora oo dadku ay leeyihiin ama mucaaradku leeyahay Djibouti ma jirta taa dawladdu ay leedahay baa jirta radio xora ma jiro markaas waxa weeyaan gudihii laguma shaqeyn karo oo maamul waxa ka jira mucangaga oo aad u adag oo aan waxba la qaban laga shaqeysan kareynin ama laga gudan karin mas'uuliyadii ay lahaayeen ama xilkii saarnaa ururada mucaaradka ayaa meesha ka jira lama oran karo waa xur lama oran karo waa urur maxay hayday ama lama oran karo maamul keligii talisa ka jira Djibouti ee waxa weeyaan maamul mucangaga maamul waxa weeyaan qawleysata af Soomaaliga ayaa lagu isticmaalaa afkan qalaadna waxa la yiraahdaa maafiyada sida Talyaaniga oo kale maafiyada Talyaaniga taliso kale maamul u dhigmo weeyaan af Soomaaliga waxa lagu isticmaalaa qawleysato markaas maamulka meesha ka jira maamul wax laga qabsan karaba maaha Djibouti dawladda ka jirta waa dawlad nabad iyo dimuqraadiyad ku shaqeysa shaqaale leh ciidamo leh waxbarasho iyo tacliin leh isbitaal leh nabad ayaa ka jirta Djibouti intaan ognahay koox yar oo farikuturisa oo adigu aad ka mid tahay oo dibad jooga ma u qalantaa nabadda Djibouti ka jirta inay carqaladeeyaan ayaad isleedahay waxa weeyaan nabad waa shay si uu dadka u khaldo uu yiraahdo nabad baa ka jirta nabadi horta kama jirta Djibouti oo nabad marka la leeyahay waxa weeyaan dad isdila oo sida Muqdisho oo kale maanta ka dhacaysa ama ka jirtay markii hore maanta way baronaatay Muqdisho sidii hore maayna way soo ronaanaysaa kama jirta Djibouti nabadi way jirtaa laakiin nabadu hadday weydo maxay hayday cadaalad
hadday nabaddu cadaalad weydo ma waarto laguma waaro nabadda haddii cadaalad la waayo nabaddu ma waarto marka cadaaladii maanta Djibouti kama jirto oo lama oran karo Djibouti cadaalad baa ka jirta taana waxaba ka daliila haddaad maanta wareysatid Soomaalida dadka reer walaalaheena Soomaalida haddaad wareysatid maxaa ku kalifay iyadoo dawlad Djibouti Soomaaliyeed ay ka jirto inay Soomaalidu Kenya maal gashadaan inay Tanzania maal gashadaan maxaa ku kalifay Uganda maal gashadaan iyadoo oo Djibouti ay tahay dal Soomaaliyeed lagu tilmaamo waxa ku kalifay waa cadaalad darrida ka jirta ayaa ku kaliftay oo waxa taa kaaga daliila reerihii dadkii ugu horeeyay ee noo yimid ee Djibouti maal gashaday waxay ahaayeen rag reer Djibouti ama maxay ka soo jeeda Soomaaliya oo u badan Majeerteen iyo Mareexaan ragii waa la dhacay way yaaceen way ka yaaceen qaarkood Mareykanka ku nool yihiin qaarna Canada ku nool yihiin maanta wayna ka carareen xooloogii waa laga dhacay marka waxa weeyaan cadaalad hadii jirin nabaddu hadii cadaalad weydo ma waarto ma aragtay dad Djiboutiana oo Djibouti ku nool oo cadaalad tirsanaya oo ama media ka hadlaya ama si shakhsi u hadlaya dabcan anagu ma inaan arag marka ma la helo dad dhibaato sheeganaya dadkan hadda aad ka hadlayso la dhacay ama dadka Djibouti ku nool ma inta soo baxaan hadlaan maantay waxba lama qarin karo sida la socoto waa aniga adiga hadda Geneva iyo Salt Lake City ta kala joogna ayaa hadda wada hadlayna marka warkan adigu aad sido maxaa loo leeyahay dad kale oo wada warkan way jiraan dhibtana kala haysata annagi iyo walaalaheena kale Soomaaliyeed ama Soomaaliya aadana ama Ethiopia aadana ama Kenya joogaan ama dibadda joogaan dhibtana kala haysata ugu weyn waa luqadda waxa weeyaan Djibouti dadku badanka waxay ku qoraan ama ay ku gudbiyaan wararkooda luqadda afka Faransiiska ay ku gudbiyaan ama ay ku qoraan marka dad Djibouti laguma dhigto wad ogtahay luqad Soomaali iskool laguma dhigto qofkii baranaya isaga dantiisa gaarkiisa u barto oo iskoolo private lagu bartaa jira ama gurigiisu ku bartaa iskoolka waxa lagu dhigtaa waa Faransiis waxa ugu horeeya luqadda afka Faransiiska waxa soo raaca luqadda maxay ahayd Carabiga iyo Ingiriiska soo raacda marka Djibouti dadku waxay badanka ay ku hadlaan oo markay aaladaan internetka ka hadlayaan ama idaacadaha ka hadlayaan waxay ku hadlaan waa luqadda ama isticmaalaan luqadda afka Faransiiska marka dadkii kale walaalihii kale Soomaalidiina ma fahmayaan afka Faransiiska marka ma arkaan badanka dhibta iyo maxay ahayd wararkan ay tabinayaan dadka reer Djibouti iyo arrimahan ka jira Djibouti ma arkaan badankood marka way yar yihiin dadka reer Djibouti ee luqadda Soomaaliga wax ku qora aad bay u yar yihiin waxayna ka jecel yihiin dadka reer Djibouti inay badanka qoraalkana Faransiis bay ku sameeyaan hadalku ku yar yahay oo dadka reer Djibouti badanka way qoraan oo qoraalkay u badan yihiin haddaad gashid baadid website baadid maxay ahayd Facebooka waxa jira baashish waaweyn oo dadka reer Djibouti aad ay wax ugu tabiyaan baa jira oo sida #24 baashka la yiraahdo kale aad baa loo akhristaa qoraalada la geliyo waxa akhrista maalintiiba ilaa 5,000 7,000 8,000 baa akhrista qoraalkii la geliyo waxa jira baashish kale oo IOG waa partir oo kala jira haddaad gashida Faransiis bay ku qoran 10,000 qof baa akhrisanaya maalintii marka aad baa loo akhristaa waxana akhrista dadka luqadaha qalaad yaqaan sida afka Faransiiska aad u akhrista marka uu nagu yaryahay anagoo Soomaali wax kuma qorno badanka kuma la tabino waa taa waxa keentay inay dadka kale walaaleena Soomaalidu ay la socon waayaan ama ogaan waayaan dhibta ka jirta Djibouti ay si fiican u ogaan waayaan weeyaan laakiin dhibta kale jirtaana waxa weeyaan idaacadaha Soomaalida waxaad moodaa inay badankoodu ay ka cabsanayaan Ismaaciil Cumar oo qaarba sidaan ku hayno wararka qaar badan oo laaluush qaataa jira idaacadaha Soomaalida oo cadaan uma hayno dad naga maqan yeelan gelin qoliyihiina mucaaradka ah dibad jooga ah ma la hadasheen dawladda ma u sheegteen waxa aad tabanaysaan oo ma kala hadasheen waxa weeyaan heshiis baa jira la galay 2014 heshiis baa la galay 2002 heshiis baa la galay 2000 heshiis baa la galay inta oo dhanba mucaaradku 2002 iyo 2014 intaba mucaaradku heshiis bay la galeen ninka maamulka haysta Djibouti Ismaaciil Cumar nin quraata ka taliyo oo afar imaadeeradii isku wareejiyeen baa ka taliya meesha heshiis baa la galay oo ay u joogeen maxay ahayd ururo caalamiya intii oo dhanba intii heshiis oo dhanba wax ka hirgalay ama wax maxay ahayd uu hirgeliyay ma jirto taana waxa kaaga daliil ah wadan idil oo maxay ahayd intaas wadada ay ku nool yihiin 40 sano jira oo idaacad quraato oo dawladdu ay leedahay radio quraato oo dawladdu ay leedahay jaraa'id quraato oo dawladdu ay leedahay ka jiro kuwii kalena la diiday oo laga mamnuucay iyaa ku tusaysa inuu meeshan ka jiro nidaam mucangaga oo lala shaqeyn kareynin inuu ka jiro waa gartay markaad fiiriso digdiga xaaladda hadda ka jirta markaad fiiriso Soomaaliya dhibaatada ka jirta
asmara markaad fiiriso jabuuti waa meel nabdoon oo nabadi ay ka jirto saxan qabow badan ay ka socoto in qaac ka baxo jabuuti maxay macno siyaadinaysaa ayaad isleedahay sidaan hore kuugu sheegay walaalkayo waxa weeyaan haddii nabaddu ay cadaalad weydo ma waarto markaas waxa weeyaan qaac inuu baxayo la iskuma hayo wayna iman oo horeyba u dhacday dad ziyaare iska dhiganaya waad aragteen 2015 ama 2015 saddex sano ka hor waad aragteen dad ziyaare iska dhiganaya ama sab siday u yaqaanaan reer koonfurku ayaa rasaas lala dul tago la garaacay oo rasaas lala dhacay wax lagu laayayna lama garanayo ilaa iminka lama cadaynayo ninka madaxweynaha waddanka ka ana waa loo sheegay waxa la yidhi war dadkan laayay cadaalad soo taag maxkamadda keen ama xeer baan leenahay xeer ciise waxa la yidhaahdaa jira annagoo lagu kala baxo oo xeerkii mari oo labada mida laga helo intiiba waa laga waayey markaas waa qasab inay qaacu imanaya marka uu bato dulmigu markuu bato maxay kibirku bato markuu bato maxay cadaalad darrida badato way imanaysaa ololku imanaya markaas waxa weeyaan nabadi hadday weydo sidaan ku yidhi maxay cadaalad ay weydo ma waarto waa gartay maxaa ajandahaagu yahay adiga iyo ururkaaga haddii maanta jabuuti lagu dhiibo maxaad ku hagi lahayd haddaad 1 iyo 2 iyo 3 nooga sheegto haddii jabuuti aan maamulkeega annagu hantino waxa weeyaan waa dimuqraadiyad waxa ugu horeeyaan ku hagayna waa dimuqraadiyad waxaan ugu kalifay inaan yaacno oon waddanka ka yaacno annagoo waddanka joognaan bilownay halkanka inaan ka yaacno waxaan ugu kalifay waa dimuqraadiyad si aan u keeni lahayn waddanka waan iska shaqaysan lahayn shaqadeeda aan iska qabsan lahayn waan shaqaysanaynay wasaaradda arrimaha boosaha iyo yaan ka shaqayni jiraano waan iska shaqayn shaqadeeda baan iska haysan lahayn waxaan ugu kalifay inaan waddanka ka cararno inaan ka hor nimaadno ninka kaligitaliska Ismaaciil Cumar inaan ka hor nimaadno waxaan ugu kalifay waa si ay wax iskaga bedelaan waddankan oo dimuqraadiyad loo helo oo looga baxo nidaam darridan ugu weyn dhibta ugu weyn maanta Djibouti waxay ahayd waddan muxuu ahaa waxyaabaan ku wadayn dimuqraadiyadda baa kamid ah xorriyadda maxay warisgaarsiinta oo aan samaynayno cadaalad sax oon keenayno intaa baan anagu dadka u keeni lahayn dadku iyagaa markuu helay dadku hadday helaan cadaalad iyo xorriyad ay helaan iyagaa dhisaya waddanka oo dhaqaalaha abuuraya iyagaa wax kasta samaynaya dadku moogtahay intaan baa lagaa doonaya marka Djibouti waagii hore maxaad markaad dukaanka gashid waxa la oranayay war maxaad doonaysaa caanuhu magacyaar bay kala lahayn macaana farmi baa dooni macaana shakoola dooni macaana maxay muus baa dooni maanta caanihii baa Djibouti contraband lagu soo geliyaa magaran oo caano waxa jira caana qasab la yiraahdo Djibouti baa jira oo warshad buu samaystay ka Ismaaciil Cumar Geelle aynaashan in la yiraahdo oo ciyaalkiisa ugu yar baa warshad samaystay warshada caanaha ka soo baxa un baad cabaysiin baa la yiri Djibouti waa gabaygii kaariye sidii gabaygii kaariye caana qasab baan u biyo dadka Djibouti u bixiyeen maxay waxartu qasab kuma cabto biyo markuu leeyahay kaariye bay ka dhaqaaqeeno caanaha qasab ku cabi meeyay caana qasab baa loo bixiyay marka Djibouti oo 7 marsale oo Ismaaciil Umar ku faano wadankan marsooyin baan hore mariyay ayaa caanaha lagu soo geliyaa contraband ama dhuumaaleysi lagu soo geliyaa mafaana mise uu hormariyay Djibouti waad aragtay wax xeeb ku yaala wax dekad ku yaala wax nabadda socota dadka ajnabiga ah habeenkii 9 saac iyo 10 saac inta soo baxa anu Djibouti waxaan tagay 2007 Djibouti ka soo warramay marka 9 saac habeenimo badda inta aadno oo xeebta ku soo shahnaan soo noqonayna cidina aysan kula hadlayn muwaadan islahayn horumarkaas kuma muuqda miya Xasan waxa weeyaan Djibouti horta jiritaankeegu dadku waxay aad u barteen oo inta calanka qaadatay Djibouti waxay ahayd horta caasimadan Djibouti lagu leeyahay ama inteeda kaleba ku daro oo waa meel weligeed ba jirtay waxay jirtaa Djibouti 200 oo sano ayaa lagu tilmaamaa intay magaalo tahay 200 ee sano nabad bay ahayd oo cid lagu dulmo iyo cid la baabi'iyo ma jirin dulum iyo baaba wuxuu noo yimid dib waxay noo timiday reer Geelle Ismaaciil Cumar reerkoogu markay noo yimaadeen Djibouti family-giiga reer Geelle la yiraahdo Geelle la yiraahdaa wada dhasheen markay Djibouti noo yimaadeen 1960kii wixii ka dambeeyay un ba dhibtu timiday Djibouti moogtay Djibouti maxaa keenay dadkii wadanka xoreeyay Soomaaliya oo Djibouti xoreeyay oo xornimada keenay oo Faransiiskii wadanka ka saaray Soomaaliya dhinac kale marka la fiiriyana waxa weeyaan Djibouti maxaa keenay nabadda waxa keenay nabaddan ku sheegaya dadku annagu xeer baan leenahay tan dheernahay Soomaalida kale aan ku sheegaya Soomaalida kale walaaleyna waxaan dheernahay reer Djibouti xeer baan leenahay xeer ciise la yiraahdo aan leenahay qof inta iska doonatay ma dulmi karaysid waxa la yiraahdaa ninka waalan iska daa qofka fayow ninka waalan tolkii baa u fayow baa la yiraahdaa dhagalay baa jirto oranaysa xeerkayga ninka waalan ee wax dilo tolkii baa u fayow tolkii baa ka mas'uula ma garan ninka walana dariiqa ordaya iska daa ka fayow marka waxa ku sheegaya in nidaamkan meesha ka jiro inuu ahayn waxa nabad ah ee shacabka iyo xeerkii jiray ee hore ee dhaqanka ayaa keenay inuu nabad ka jirto Djibouti marka
xorriyadda ay keeneen sheegaysi reergeele ma keenin oo waxaan wadnaa buug hadduu ilaahay idhaahdo soo bixi doono mar dhow haddii waqtigu noo fasaxo aan kaga sheekaynayno taariikhda jabuutiya sidai reergeele u yimaadeen reergeele taariikhda kama qayb gelin waxay ka hortegeen raggii u halgamayey calanka jabuuti bay ka hortegeen oo ay la dagaalamayeen ismaaciil cumar wuxuu u shaqayn jiray bilayska faransiiska ee gumaysiga u shaqayn jiray wuxuu ahaa raggii xuduudda lowi caddo joogay ee la dagaalamayay raggii FLCS-ta jabhaddii FLCS-ta la oranayay xoreynta jabuuti raggii la dagaalamayay ka hortegayay buu ahaa ee u warrami jiray ee sheegi jiray ama jaajuusi jiray ama basaasi jiray buu ahaa dadkii halgamaaga ahaa walaalkii ismaaciil cumar wuxuu ahaa maxay ahayd nin ka ganacsada gabdhaha yaryar buu ahaa oo suuqa subxaanallah yana halkaa hagaarin saaxib waaye marka waxa weeyaan waxaan kuu sheegayaa marka wax wanaag laga sheegi karaa ma jiro reer geele iyo ismaaciil cumar wax wanaag laga sheegi kara ma jiro talabaadna jabuuti ismaaciil cumar madaxweyne siduu ku noqday adeerkii baa soo qaado oo dul dhigay karti iyo xirfad iyo doorasho ku miiman ismaaciil cumar walaalkii baa soo oo dusha naga saaray sidii islaam baa hore u tiri reer jabuuti aa tiri adeerkii baa yidhi maxay ahayd jabuuti anu intii aan karayay adeer waan baabi'iyey ama waan ku tuntay adaa buurana intaa dhan kusii boodbood buuro burburi bay tiri islaantaasi ma garan markaas tani sidii unba u eg tahay oo jabuuti halkuu ku wada ismaaciil cumar maanta meel laga soo kici kara maaha waxay naga doonaysaa haddii aan gacanta ku dhigno waddanka oo annagu aan maamulka qabano ama urur kale oo mucaaradku maamulka qabto 30 ilaa 40 sano ay qaadan si looga soo kaco halkuu na geliyey taana waxa kuu muujinaysaa qaanta uu na geliyey jabuuti waa 2 bilyan sida u yaqaanaan dadka reer koonfurta 2 bilyan ama maxay ahayd waqooyigu dadka reer jabuutina waxa u yaqaanaa 2 milyaar shiinaha keligeed baa intaa laga soo qaatay marka waxa weeyaan waxa u dhigmataa intaasi budgetka jabuuti 3 sano oo budgetka jabuuti ay ku shaqeyso dakhliga ay dawladda jabuuti ku shaqeyso 3 sano u dhigmataa lacagtaasna boqolkiiba 60 jeebada waxay ku dhacday rag ba ku dhacday boqolkiiba 40na waxa lagu dhisay marsooyinka aad arkaysid ee lagu faanaya lagu dhisay boqolkiiba 60na waxay ku dhacday jeebada rag bay ku dhacday raggaas oo ah ismaaciil cumar uu horeeyo lacagta isaga uu dibadda ku haysta waxaan xisaabinay inay u tahay 2 bilyan inay tahay baan xisaabinay imika ahaan intaan tirinay inta naga qarsoonna markaad ku dartid 5 bilyan ilaa 4 bilyan ku tilmaam inta uu waddanka ka dhacay ubadkiisii baa sidaa u dhacaya walaalihii baa sidaa u dhacaya ilmaadeeradii baa sidaa u dhacaya marka maxaad ka malaynaysaa waddankaasi xaaladiisu halkay tahay dowladda jabuuti haddii ay cafis kuu fidiso oo la yidhaahdo xasan ku soo laabo waddankii oo dowladdu ay kula hadasho ma aqbalaysaa cafiska dowladda oo dowladda ma la shaqaynaysaa annaga waxay naga taagan tahay ama ismaaciil baa joogay ama annagaa joogayna waddankan ma garan hadduu diiday waxa la yidhaahdaa muxuu ahaa ninka sinaantaada diiday sarreyntiisa buri baa la yidhaha ma garan marka waxa weeyaan ismaaciil hadduu diiday inay dadku sinaadaan oo cadaaladda u sinaadaan oo waddanka loo sinaado dee maxay hayday nin iyo taagtii weeyaan haddee isagu waa xoolii dowladdu haystaa cududii dowladdu haystaa annagu ma haysano laakiin haddana waxaan taa u ballan qaadaynaa dadka dadaalkan ku jirno inayna gaadhsiin doonto ismaaciil cumar halkuu ku dambeyn doono sida ninka maxay hayday ii sheeg ninka Ivory Coast haysanayay la oranayay Bagbo inaan lahay ka dhaadhicin doono geyn doono ayaan dadka u ballan qaadaynaa waa gartay haddii hadda aad fursad u hesho madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar gelle aad la fadhiisato tala caynkee ah ayaad sii lahayd hal iyo laba talada ugu horeysa siin lahaa waxa weeyaan meesha uga tag ummadda iska dhig iska wareeji la shir maxay mucaaradka hor fadhiiso intaad iskugu yeedhid waa talada igala wareego oo afis ka dalbo taasi hadday timaado intuu hor fadhiista mucaaradka uu yiraahdo sida maxay ahayd uu sameeyay madaxweynaha Isayaas Afwerki waad aragtay Asmara wuxuu la kulmay mucaaradkii war fadhiistay waxa doonaysiin halkaas soo dhigtay ku dacwinaysiin buu yiri uu ka qoray raggii la shaqeynay way qorteen waxna waa lagu heshiiyay hadduu sidaa oo kale Ismaaciil Cumar intuu halkaa yimaado uu maxay ahayd Paris yimaado uu mucaaradka isku kaalaya war waxa doonaysiin ila fadhiisto oo igala hadla oo laga wada hadlo oo tuma ayna ku jirin ayna ka ahayn khaayinimo iyo wixii lagu yaqaan Ismaaciil Cumar ayna ahayn oo tu daacada ay tahay waa la hadli karaa waana la fadhiisan karaa ta ugu horeyseen laga wada hadlayo sheyga ugu horeeya laga wada hadlayna waa sidoo talada iskaga wareejin lahaa sideed u aragtaa baaqi madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in dawladda Asmara ama Eritrea laga qaado cunaqabataynta hubka cunaqabataynta saaran Eritrea laba wadan bay saaran tahay Eritrea Soomaaliya waa la saaray taasi waxa weeyaan Farmaajo kuma khaldanayn wuxuu ugu khaldanayn horta wadan xor buu yahay wadan marka lagu leeyahay madaxweynihiisu iyo dadkiisu iyo nidaamkooduba xor bay yihiin
wixii dantooda way ilaashan karaan wixii iyaga u dana way ku hadli karaan marka waxa uu halkaas hadalku ka yidhina ma ahayn uu Eritrea laga qaaday cunaqabataynta ana laga qaado buu yidhi Eritrea iyo Soomaaliya buu yidhi Farmaajo taana khalad ma ahayn uu ku saxsanaa Farmaajo annaga colaad horta haddaan ku sheego Soomaaliya waa dalka ugu horeeya ee dalka yagiya waa dalka Soomaaliya xagga noo dhig waa walaalaha Eritrea in cunaqabataynta hubka laga qaado sideed u aragtaa خالد ما هنا لقى قاد أنا جو هرت علو ما رجع على إريتريا إسماعيل عمر بعليهن أنا جو علم منهن إسماعيل عمر إيه أفرت وضن كجيبوتي كأنت كويس إريتريا صو إذا ما جيبوتيان أنا مدلين دول جيبوتيان أنا صو ما هيستان دول أي صو قالين أوري جيبوتي ويجرت إريتريا تاسي مديدنا إيه كتجان وكعاب سيدا واحد ما يصير قضية جيبوتي هديبا آذن كجبنين دول كم كان جمهورية جيبوتي waxa lagu gubanayaa waxa weeyaan horta waxa ka horeysay maxaa keenay inay Djibouti iyo Eritrea ay badaxaysiyaan waxa keenay Djibouti leedahay ayay haysataa Eritrea ciidan qaran oo Djiboutian ahina uu ku dhintay kuma cuslaysamaya taasi wax dhib oo ma aragtid way tahay dhibta ayaa keenay ninka keenaa horta la saaraa maxkamadda walaalkayow way jirtaa wayna cuslaysinaysaa waanan diidanayn anagu qoraalaan ka sameynay maxay ahayd anagu waxaan kamid ahay raggii u diray ee ugu horeeyay ee qoraalka ka sameeyay baan nahay waanan haynaa qoraalkii diiday in Eritrea joojiso dagaalka Eritrea Djibouti anaga dan nooma ahayn markaan ku sheegay markaan ku leeyahay shicibka Djibouti dhinac u dhig anaga mucaarad ahaan dan nooma ahayn nin quraatay dan u ahay dagaalkaas Ismaaciil bay dan u ahayd oo ummadda ku kacaysa ayuu ka hortagay muxuu ahaa iyo dagaalkan isku noqday fursad uu ummadda ku jeediyo oo dhibaatada wadanka gudaha ka jirta uu ku jeediyo oo dhinaca dadka iskaga jeediyo iyo u noqotay annagu dadkii ugu horeeyay ee wadanka Eritrea yiri baan nahay warna faa'iido yahay baan nidi maaragtay marka wayna gubaysaa waanan diidanahay mana ogolinna waxa weeyaan waxyaabaha ugu horeeya ee annagu aan Eritrea kol kastaba ku celinno waxa weeyaan Djibouti ay ka joogto maxay waa dhul aad u ballaarnayn ka baxdo ta kale waxaan ku weydiisanay in dagaalkana joojiso wax dan noogu jiro ummadda Eritrea maaha reer Djibouti dan ugu ma jirto colaada ka jirto xuduudda nin quraato bay dan u tahay oo kursigiisa ku adkaysanaya waa Ismaaciil Cumar waa gartay wad mahadsan tahay DB Wall iyo Djibouti muran ayaa soo kala dhaxgalay khilaaf ayaa ka taagnaa hadaad faahfaahin naga siisa xagee khilaafkaasi maraya DB World iyo Djibouti horta 2000 DB World shirkadda la yiraahdo Djibouti waxay timiday sanadkii 2000 iyo timiday waxa weeyaan 18 sano ka hor bay timiday shirkadaasi Ismaaciil Cumar bay la saxeexatay heshiis markan ku leeyahay dawladda Djibouti lama saxeexan waxay la saxeexatay Ismaaciil Cumar waxaan ugu celcelinay inay Ismaaciil Cumar waa madaxweynaha Djibouti qaranka iyo dawladda Djibouti ayuuna matalaa waxaan kuugu celinay hadalka inuu leeyahay Ismaaciil Cumar bay la saxeexatay heshiiska DB World Djibouti la gashay quraata un baa ogaa Ismaaciil Cumar sababtoo ah baarlamaanka la marin waad aragtay Soomaaliya markii dhaweeyday ee DB World wax ka dalbatay baarlamaanka la mariyay Soomaaliya oo qabiyo amaanta oo dhibaato ku jirta yaa baarlamaanka la mariyay Djibouti laakiin lama marin anu markaa waxaan ahaa mas'uulka ururka shaqaalaha ee dhexe baan ka ahaa mas'uulka cilaaqaadka dibadda waxa dhacay shaqaalihii marsada Djibouti yaa dibadbax sameeyay ama shaqo jooji sameeyay waxaan sameeynay si aan ula xisaabtanno DB World waqtigaasi waxaan ku qasbanaa inaan dib u eegno heshiiskii ay la gashay Djibouti shirkad ama ay la galayso heshiis aynkaas oo kala shaqaalaha shaqeynaya xeerka qabanaya lagu xeerarka ku dhex jira heshiis ku dhex jira waxa kamid ah shaqaalaha ka shaqeynaya meeshaasi xeerkee qaban doono xeerka Djibouti qabanaya xeerka DB World ba qabanaya mise xeer caalamiya si aan dib ugu eegnaan ku qasbanaanay xeerkii waxaan ugu dhacay heshiiskaasi waa noo diiday wasiirkii shaqada oo markaa ahaa Siciid Barkhadni la oran jiray yaana yidhi walaalkayow waxbaa nii sheegaya war ma haysiin culmoog baa tihiin heshiiskaasi Ismaaciil Cumar gacantiisu ku jiraa cid kale oo arki karta ma jirto anoo wasiira ma arki karo heshiiskaasi gacantiisu ku jiray maxaa keenay inuu heshiiskaasi qarsoodi laga dhigo oo Ismaaciil Cumar maan qof kale ay aqoonsan weydo waxa heshiiskaas ku jira khaayinimo ku jirta khaayinimadu waxa kamid ahayd shirkad waxa jirta ilaa imika jirto Horizon dadka reer Djibouti way yaqaanaan la yiraahdo Horizon ma magaceega la yiraahdo shirkad kale waxa jirta Essence la yiraahdo magaceega oo dadka reer Djibouti yaqaanaan shirkadahaasi share bay ku lahaayeen ama qayb bay ku lahaayeen contractka shirkadahana waxa kale Ismaaciil iyo islaantiisa kale shirkadaas marka waxa weeyaan waxa la qarinayay ina xoolihii ummadda sidii loo leexsanaya la qarinayay waxa loogu diiday inay dadku arkaan
maanta maxaa keenay inaan la isdiido DP World DP World markii ugu horeysay waxa loo dhiibay inay maareyso DP World lacag ma gashan Djibouti bas waxa loo dhiibay inay maareyso marsadii ugu horeysay Djibouti ay lahayd marsadii qadiimiga ahayd ee 150 sano jirtay ee Djibouti lahayd baa loo dhiibay inay maareyso markay taasi maareyntii sanadkii 2000 bay ahayd kadib 2004tii waxa loo baahnaaday in marsad labaad la dhiso marsada Dooraale la yiraahdo la dhisay marsada Dooraale 350 milyan oo dollar bay gashatay shirkadda DP World taa markii la dhisay way sii balaadheen shirkadihii marka maxaa keenay maanta inay DP World iyo Ismaaciil Cumar isdiidaan waxa keenay ee dadku ogeyn waxa weeyaan nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Boore baa jira oo Ismaaciil Cumar coleyihiin oo ganacsade weyna oo dadka reer Djibouti yaqaanaan oo annaguna aadan isku xigno oo ninka ilmaadeernay marka ninkaasi iyo Ismaaciil Cumar baa isdiiday Ismaaciil Cumar iyo ninkaasi markay isdiideen iska hor yimaadeen DP World lagu sheer ku leeyahay ninkaasi oo shirkadan DP World lagu sheer ku leeyahay shirkadii DP World ka saara ayuu Ismaaciil Cumar weydiistay DP World inaa ninka Cabdiraxmaan Boore laga saaro shirkadda DP World ayuu weydiistay DP World waxay tiri waa xeer kama saari karayno ninkan sheer buu ku leeyahay sidaad u seexay annaguna aanu seexnay nin kastaba sheer ugu leeyahay DP World iyo Djibouti buu ninkan sheer ugu leeyahay kamana saari karnay yiraahdeen ama action iyo ku leeyahay sida Djibouti ay qana action buu ku leeyahay marka kama saari karayna yiraahdeen markaas taaba keentay in la isku dhaco oo dagaalku halka weeyaan wuxuu ka taagan yahay Ismaaciil Cumar ninkaas buu leeyahay ka saara shirkadda iyo kama saarina waa inta Ismaaciil Cumar iyo DP World waxa la isku diiday DP World 2000 iyo ilaa imikina la joogtay ee maareynaysa Djibouti marka waxa weeyaan waxa la oran karaa Ismaaciil Cumar intii hore bilaa indho ahaayo indhaha imika u dilaacay oo loo furay baa la oran karaa sidoo arki waayay khaladka DP World 12 sano ay Djibouti ka waday sidoo arki waayay maanta uu arkay taaba yaab leh ma aqoon dara haysan midkeen ku tilmaami karnaa marka waxa weeyaan khaynima ku jirtay shubahashan een maxay yahay contractkan Djibouti iyo DP World khaynimaduna waxay ka socotay xagga Djibouti sababtoo ah marsooyinka male DP World Djibouti baa la marsooyinka ninka contractka saxaya waa adiga ninka wax ka lumayaana waa adiga haddaad eegi kari weyday ama aad iska ilaalin kari weyday contractkaasi waxay ka dhigan tahay maamul contract shirkada la gashay haddaad iska ilaalin kari weyday wadan sideed u maamuli taswiidiinta meesha taalaba waa taa mid kale aan kuu sheegay oo waxaan hayaa go'aankii ka soo baxay maxkamadda London ee ganacsiga adduunkan hayaa go'aanka waxa ku qoran gabadh la talisa Ismaaciil Cumar baa jirta oo la taliyaashiisa kamid ah waxay ka tiri Ismaaciil oo contractkan sax maaha gabadhii waa laga saaray contractkii waxay dhigatay gabadhaasi maxay xeerarka caalamiga ku takhasustay contractkay ku dhex qorantay waxay ku dhex qorantahay go'aankii maxkamadda u yeedho wareysatay London oo gabadha weydiisay oo ka tiri dadkii contractkan joogay baa tahay ka waran baa la yiri gabadhaasi waxay tiri Ismaaciil Cumar waan u sheegay contractkan waxba ka khaldan baan yiri uu iska ka diiday way tiri markaas ninkani gabadhu waa Djibouti waxay ka shaqaysaa aqal madaxtooyada Djibouti ka shaqaysaa adeer buu u yahay Ismaaciil Cumar baa adeer u ah gabadhaasi ma fahamsanayn inay meeshani khaynimo ku dhex jirto contractkan wayna sheegtay waanan haynaa qofkii doonayna waan siin karnaa go'aankii maxkamadda waan hayaa ka soo baxay ee maxkamadda London waana aragteena waa loo yeeray Ismaaciil Cumar oo maxkamadda London waa u yeedho waxay ka tiri kaale ka hadal adaa saxeexay ilaa marka la isku qabto wax ninkii saxeexay ama ninkii go'aankan uu ka go'ay baa loo yeeray Ismaaciil Cumar baa loo yeeray kaale waran baa leeyahay sheeg oo hadal waa la dhacay baa tiri adaana saxeexay see lagu dhacay baa leeyahay noo waran uu iska diiday uu tagi kar waayay maxkamadda wuxuu tagi waayena de way ku cadaanaysaa ma ninba markhaati isku furaya waxa loo soo saari labadii shirkadood ee Horizon iyo Essence labadii shirkadood ee ku sheegay magacdooda loo soo saari labada shirkadoodna waa isaga iyo islaantiisa ku qoran khadra xayd baa ku qoran iyo isaga ku qoran marka gabdhaha aan iska dhaafno please gabdhaha marwada aan ka gudubno insha Allah bidmillah kareem xilli dawladda kama hayso maaragtay sidaan ognahay waa marwada koowaad dalka kaliya Soomaaliya waa marwada koowaad ee dalka ha marka intaasaan ku gaabinaynaa haddaysan xil hayn ama wasiir ahayn ama safiir aysan ahayn siyaasiyad dabcan ma ahan marka waa marwo guri joogta intaasaan uga gudbaynaa ururkaaga ma ka mid yahay ururada ay dowladda Djibouti aqoonsan tahay inay yihiin ururo mucaarad ah ma ku jiraa dowladda Djibouti ma aqoonsano ururkayga inuu ka mid yahay ururada mucaaradka ee dowladda Djibouti aqoonsan tahay dowladda Djibouti waxay aqoonsataa ururkii ay ogol inuu sida iyadu doonayso u dhaqmo bay aqoonsataa annaguna aqoonsi kama barnaba oo xeerka annaga dalka iyaga noo yaala ama xeerarka wadanada afka Faransiiska ku hadla ay leeyihiin ama kani caalamka baadaan si raacano aanu Geneva jooga shirar badan baan ka qayb galay ururada waxaan ka qayb galay maxayday difaaca xuquuqda ururo badan oo Afrikadan yaan u joogay waxa weeyaan looma baahna aqoonsiba uma baahno ururku hadduu mar saddex qof isku tageen dastuur ay qoreen
ururkaasna uu ku salaysnayn diin ama uu ku salaysnayn qabiil ama uu ku salaysnayn maxay ahayday maxay ahayday nashqad jirka uuna ku salaysnayn kalarka jirka waa urur jira oo maxay ahayday xeer wadan walba laga aqoonsay taa waxa ku muujinaysa wadanadan joogno ururkayga account ka furtaa bangiyadu ku leeyahay waana lama furaa waa urur laga aqoonsay wadanadan joogno ee Yurubada taa baa ku muujinaysa in ururkan yahay xeerka waafaqsan yahay Djibouti kama barabnaba Ismaaciil Cumar anagu waxaan leenahay maba aqoonsanin ba Ismaaciil Cumar oo madaxweyne buuxa ma ayna waa nin isku dhawaaqay isagu Ismaaciil Cumar nin la doortay ma waa nin isku dhawaaqay Ismaaciil Cumar nin isagu isku dhawaaqo is doortay waa sidii maxay ahayd doorashooyinka Djibouti ka dhacana sidii ay yiraahdeen weeyaan markii Ziyaad Bare abgaalku yiraahdeen nin dooran baad maxaa doorta noo tiraadeen maxaa noo dambaajiseentii waayaan waa nin markaas muxuu ahaa anaga ururkayga uu jira waa urur saxa waa urur ama adii ama adoon Ismaaciil Cumar waana uu jira marka waxaad leedahay ururada madaxweynaha Djibouti ama dawladda Djibouti ay aqoonsan yihiin ee mucaaradkaana adinku inay ururo mucaarada yihiin uma aqoonsanidin miya ururada Djibouti ka jira ee iminka doorashooyinka qayb gala ururo mucaarada maaha waa isaga un baa ku tilmaamay shaarkii mucaaradka un bay xidhaan maaha ururo mucaarada oo la oran karo ururkaasi waa mucaarad oo xor buu yahay wuxuu doonu sheegan karaa sababtoo ah waxyaabo waxa jira ururo waxa jira lagu eedeeyay ururadii markay hadlaan waxa lagu eedeeyaa Djibouti eedba waxa lagu sameeyaa dambi aanan jirin baa lagu abuurayaa oo waxa lagu oranay muxuu ahaa waxba kamid ah oo ku soo qaaday urur la yiraahdo MRD baa jira waxa lagu eedeeyay oo nin daaf la yiraahdo jooga Brussels oo ka madax yahay waxa lagu eedeeyay Eritrea warqad u qortay baa la yiri warqadaasna aad ku leedahay Eritrea ku duulay Djibouti gaad u qortay baa la yiri warqadana waan iska wada ognahay ninka sameeyay waa ninkii wasiirka arrimaha gudaha ahaanayay waraabo koraya nin loo yaqaano Cumar Cilmi Buux loo yaqaano wasiirka arrimaha gudaha ahaanayay waa nin Ismaaciil Umar Maadeeyi ninka baa warqadaas sameeyay saxiixa isticmaalay ninkan madax ururka MRD ka madaxa isticmaalay waa la iska wada ogyahay dadka reer Djibouti haddana ururkii Djibouti waa laga mamnuucay oo urur weyn oo waqti dheer soo jiray weeyaan waa laga mamnuucay Djibouti taaba ku tusinaysa inay waxani tahay muxuu ahaa in urur madax banaan Djibouti ka jiri karin yaa ku tusaysa taa ka soo gudub ururada siyaasadeed ka soo gudub anu waxaan kamid ah ururada shaqaalaha Djibouti ururada shaqaalaha waad ogtahay adduunku kursi uma dagaalamaan waxay u dagaalamaan qofka bilaadanka sidoo uu noolaan lahaa iyo qofka shaqaalaha sidoo xaqiisa u helaan bay ku dagaalamaan ururo siyaasad galama ururo kursi u loola tamamaha tii iyaa la diiday oo laga mamnuucay Djibouti urur shaqaale Djibouti waa ka mamnuuc Ismaaciil Cumar ka mamnuucay wuxuu sameeyaa rag kaas kamid ah sirdoonka ayaa loo xidhaa shaarkii ururada shaqaalaha oo shirarka halkan la keenaa sanad kastana waa laga eriyaa dad iminka Geneva shirki ka dhacay bishii dhaweeyay bishii shanaad ee sanadkan ka dhacay ururka shaqaalaha Djibouti gidaar baa lagu xidhay waa laga saaray shirki sanad kasta saaba looga saaraa 95 ilaa iminka saaba Djibouti looga saaraa dhowr iyo 23 sano Djibouti sanad kastaba shirkan shaqaalaha adduunka la isku yimaado Geneva waa laga saaraa waa urur shaqaale waxa loo diiday inuu ka jiro kii siyaasadeedna iska badaaba hadalkiisa waa gartay ururadiina dibad joogga ah ee adigoo kaleeta ah waa meeqa urur ee Djibouti ku ah mucaaradka waxa lagu tira ahaan ma tira koobin laakiin ilaa 5-6 way noqonayaan boo intii urur mucaarada ka jirtay wadanka dibadda wada joogan maanta ma shirteen oo ma wada hadasheen oo inaad dawladda wajahdaan oo cod midaysan iyo aad ku wajahdaan marna ma ka shirteen waa ka shirnay waana wadnaa iminka mid weyn oo isku iman doona hadduu ilaa bishan soo socota ee bishan 9aad ee soo socota 15keega ayaan isku iman doonaa Paris waana wadnaa waana ku jirnaa waana ka shirnay waana sameyn doonaa cod mid oo waan soo saari doonaa mar quraata mar dhow marka waan wadnaa taasi yaa ururkaaga taageera ururkayga waxa taageera cidii reer Djibouti ee ogol dimuqraadiyad ina wadankan lagu dabaaq lagu soo laga hirgeliyo wadan dimuqraadiyad noqdo laga hirgeliyo dimuqraadiyad iyo taageera waxayna u badan yihiin dad gudaha jooga iyo dad dibadda jooga way taageereen urur dad ajnabi ah ururo ajnabi ah ama dawlado ajnabi ah oo idin taageera ma jiraan ururada waxaan ka mid nahay ururkani oon sugaynaa inaan loo ansixiyo imika oon ka mid noqonay ururka maxayday ururada dimuqraadiga ee adduunka sida ururkan uu ka mid yahay maxayday ururkan dimuqraadiga Mareykanka ka jiro kale maxayda dalada uu ka mid yahay oo kale ee adduunka jirtaan yaan dalbanay inaan ka mid noqono waana nalaga ogolaaday waana sugaynaa inaan loo ansixiyo taas baa kamid ah dawladaha hadda tiraadid waan la shaqeynaa dawladaha wayna wareystaan xaaladda Djibouti ka jirta iyo geeska Afrika way naga wareystaan markaan la kulano markaas taageero nama siiyaan oo sirta qaranka Djibouti aad gudbisaan
sir horta Djibouti sir ay leedahay oo gacanta ku hayna anagu ma jirtid amniga anagu ma maamulno Ismaaciil Umar adeerkii waa maamul amniga Djibouti ninka ba sir taaya ninka quraatay sirta Djibouti gudbin kara waa ninkaasi waxyaabahan kala hadalna dawladaha waxa kamid ah muxuu ahaa khatarta Djibouti ku soo socota oo kamid yahay ugu horeeya maxay ahayd shaqadan imika hoosaaneed Ismaaciil Umar wado inaad aragti mooyaane waxa jira jaraa'id la yiraahdo igis Afrika la yiraahdo oo soo saaray report sida uu Ismaaciil Umar hubka uga ganacsado hubkaas oo ilaa al-shabaab laga galo yaa soo baxay maaha wax hadala waa qoraal baa la hayaa bangiyadii ay martay baa la hayaa sawiro la hayaa rag ciidanka kamid ah Djibouti markaan ku leeyahay ciidanka Djibouti waxa weeyaan ciidanka xeebaha ninka haysta Ismaaciil Umar maadeerka yihiin ciidanka madaxtooyada ninka haysta Ismaaciil Umar ay maadeerka yihiin baa kamid ah sawiro la hayaa iyagoo la jooga rag hubka ka ganacsada oo la iska garanayo oo xuutiyiinta kamid ah iyagoo la jooga oo Djibouti xeradii militariga Djibouti la dhex jooga la hayaa sawiro waxa weeyaan bangiyadii ay mareen baa la hayaa lacagahaasi oo wax qarsoomaya maaha muxuu ahaa cidii doonaysana waan siin karnaa reportigaas oo waan helnay copy waan la siiyay copy waan siin karnaa marka khatar bu Ismaaciil Umar Djibouti uu khatar kuma haya geeska Afrika oo dhan buu khatar ku haya ninka maxay hayday Soomaali baan caawinaya al-shabaabna hub ka gadaya de isma qaadayso ma garan oo wax cad oo la haya maanta hubkan ilaa Djibouti laguma beero oo hubku maaha wax ciidanka Djibouti waa 30,000 marka la isku geeyo gabi ahaanba marka isku geeysi macal bilays waa 30,000 ciidanka Djibouti hubka marka la tiriyay Djibouti ay soo iibsatayna waxay noqon kartaa ciidan hubka Djibouti soo gadatay waa hub lagu qalabayn karo ciidanka marka la isku geeyo Eritrea Djibouti iyo Soomaaliya marka la isku geeyo lagu qalabayn karaa marka waxa la isweydiiyay oo hay'adaha qaramada midoobay isweydiiyeen hubka inta leeg maxay ku falaysaa Djibouti waxay ku falaysaa Ethiopia darisay la tahay Eritrea dhulka ka haysataa Soomaaliya qalalaasa siyaasadeeda ka jira de amaankeeda ku xalinaysaa la leeyahay iyo kala dambeynta iyo nidaamka iyo farxadda hadda ka jirta Djibouti waxaweyaan igu celi intaas way iga fakatay maana Ethiopia waa dal weyn oo bad lahayn qalalaasa ka jira hadda ka socda Eritrea dagaal kula jirta Djibouti dhul iyo ayay ka haysataa Soomaaliya dhibaato ka jirta qalalaasa ka jira buqacad sidaas ayay ku nooshaa marka inay ciidamadeeda bisho oo ciidamadeeda dhisato oo isdifaacdo miyaan xaq u lahayn Djibouti oo nabadda iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda ay ka shaqeyso waa u leedahay xaq inay Djibouti ciidamadeeda dhisato ay isdifaacdo waa u leedahay laakiinse muxuu ahaa marka la arkay nin la yiraahdo muxuu ahaa Cabdu Rabbo nin la yiraahdo baa jiro oo reportigan kaarkii la sameeyay ninkaasi waa la garanayaa waa nin xuutiya wuxuu soo gadaa hubka iyo soo gadaa xuutiyiinta wuxuu isticmaalaa baasaboor reer Djibouti isticmaalaa ay leedahay ninkaas waa nin xuutiya goormu Djibouti noqday baasaboor Djibouti ay leedahay buu isticmaalaa waan haynaa baasabooradii uu ku jira reportigan ninkaasi waxa lagu arkay isagoo la jooga xerada ciidanka madaxtooyada ilaaliya madaxweynaha ciidanka ilaaliya isagoo xeradooda la dhex jooga ayaa lagu arkay waxa lagu qabtay isagoo hub Sacuudiga qabatay ciidanka badda Sacuudiga qabtay isagoo dooniyo ku rarta hub Djibouti ka baxayaan marka ciidanka xuutiyiintu waxay kamid yihiin kuwa difaaca Djibouti bay kamid yihiin baa la is oran karaa markaas hubka markii la baarayna waxa laga soo iibiyay wadanka la yiraahdo Brazil la yiraahdo laga soo iibiyay warqadda lagu soo iibiyana waxa saxaxay ninka ciidanka Djibouti haysta Zakariya la yiraahdo Sheekh Ibrahim Zakariya la yiraahdo saxaxay warqadda lagu soo gaday hubkaasi waa ninka ciidanka waa generaalka ciidanka Djibouti haysta saxaxay waxa soo dhan cadeymii way wada yaalaan marka hubkii lambaray leeyin hubka adduunku waad aragtay nin xuutiya oo ka ganacsada hubka ayaa lagu qabtay gacantiisa hubkii isagoo Yamanta gelinaya lagu qabtay oo ciidanka badda Sacuudiga ay ku qabteen markaas waxaan isweydiinta meesha taalaay waxa weeyaan ciidankii xuutiyiintu waxay kamid noqdeen difaacii Djibouti bay kamid noqdeen isweydiintu waa taa maalin dhaweyd waad aragtay jaraa'idku waxay ka hadleen Muqdisho waxa laga dhaadhiciyay muxuu ahaa 1500 oo huba laga dhaadhiciyay oo diyaarad la yiraahdo Damas Fly lagu raray oo airportka Djibouti ka kacday waana mamnuuc in hub la geeyo Muqdisho hubkaasi Muqdisho ka dhaadhacday bishii lixaad bay ahayd maxay warabahaas oo dhan cadeyn looma hayo ciidamo ka tirsan Djibouti ana Muqdisho iyo balad weyna jooga marka dabcan waa suurtagal in ay ciidamadeeda hubeynayso oo ay hubay isu difaacaan ay argixisada kula diriraan ay u dirayso marka cadeyn looma hayo dabcan dhinaca dhaqaalaha Djibouti hadaad fiiriso ka waran uu soo korayaa hadda dhaqaalihii dekadaha waayada la dhisayo wadooyinka waayada la dhisayo caasimada Djibouti marka tagto ayadana waa wada mutuleel dabcan waa meel qurux badan hoteelada ku yaala soo koraya waa magaalo dhismaysa taa iyada sidoo u aragtaa dhaqaalaha Djibouti iyo waxa uu madaxweynuhu ka qabtay dhaqaalaha Djibouti hadaan ka hadalno waxa weeyaan markii calanka qaadanay dhowr sano reer Djibouti oo abwaanaha Allah u naxariistay yaa ku hees oranaysa
roobkoo da'ayo oo biyo laga darayn roobkoo da'aya oo biyo laga darayn marka dhaqaalaha Djibouti waa sida waa roobkoo da'ayo oo biyo laga daraynin waad aragtay Djibouti markaan anagu aan yaryarayn 70-nadii 80-nadii xaafadda baambada meel lagama soo dhaansanayn xaafadaad galaysay adoo iskoolka yimid aad gurigaaga galaysay ama qofkii shaqada ka yimid gurigiisu galaya baambada aqalkiisa ku taalo furanaya uu biyo ka shubanaya uu ku qubaysanaya uu cabaya ma aragtay maahin ceel lagama soo dhaansanaynin maanta dadkii reer Djibouti waxay joogaan 40 sano kadib anagoo calanka haysana iyadoo dhaqaalihii 10 laab ay gashay wadanka inay dadkii biyo la'aan noqdaan oo ceelal la qoto oo mar dhaweyd waxa dhacday magaalo yar oo la yiraahdo hol agteeda dadkii baa ceel qotay ceelkii waad aragtay Djibouti waa dhul qalalsan biyo la'aan baa ka dhacday dadkii ceel bay qoteen ceelkii markay qoteen waxa isku diriray xawayaan dugaag iyo waxa isku diriray dadkii baa isku qabsaday ceelkii korkii maaragtay 40 sano anagoo calan haysan oo lagu leeyahay horumar baa la gaaray oo lagu leeyahay dhaqaalihii baa cirka galo 10 laamay waa run oo dhaqaalaha Djibouti waagii hore wuxuu ahaanayay 27 milyaar ama maxay 27 bilyan sidii dadku mid Soomaalidu ninba yaqaaneen oo faranka Djibouti ahaanayay maantana 127 buu socdaa waa 10 goor buu ku lubin laamay marka haddana tii dadku gaajadii baa sii badatay waxa sii batay shaqalaantii baa biirtay waxa batay xanuunkii waxa kamid oo kale oo kuugu daray waagii hore Djibouti waxa qofka wadaniga ahayn qofka wadaniga ee shaqeeya waxa loo ogolaa oo laga goosanayo mishaarkiisa boqolkiiba 2 laga goosanayo mishaarkiisa boqolkiiba 2 ama boqolkiiba 2 laga goosanayo mishaarkiisa mishaarkaasi boqolkiiba 2 laga goosto waxa loo shubayay hay'adda caafimaadka loo shubayay waa maxay sida maxay caymiska ay Soomaalidu u taqaano ama asiirooska reer Djibouti u yaqaanaan baa loo shubayay ay dawladdu leedahay way ku daweynaysaa oo waxay sameynaysaa dawadii dhakhtarkeega kaar bay ku sameynaysaa warqad bay ku sameynaysaa isku daweysid waliga waad daweynaysaa qofka reer Djibouti ahayn ee soo galeytiga ama safarka ana bilaash baa dhakhtarka lagu daweynayay qofka xanuunsada dhakhtarka la geynayay waa la daweynayay lacag lagama qaadin waxba lama weydiinin imika dakhar hadduu kugu dhaco ama Djibouti haw ama ajnabi haw hadduu dakhar ku soo gaaro oo laba qodob lagu tolay qodobkii waa 300 oo franc oo Djibouti waa $2 qodobkii waxa lagu tolay nin dhakhtarka hortiisa jooga ka iibinaya duntii iyo irbadii ka iibinaya lagu tolay magaran oo la fadhiya waxa weeyaan marka hore marka la sheegayay lacag baa soo gashay wadankii aan soo gashay lacagtan halkay martaa jeebada rag bay ku dhacdaa lacagtan waxbarashada ka waran jaamacadaha mar aan aqoon-yahano badan oo Soomaali iyo ajnabi ah iyo Djiboutiyaan ah 2007 shirka ka qayb galeen aan ku jiro kala qayb galay jaamacadaha sidii u socdaan jaamacadda Djibouti waad aragtay iskuulaadka iyada ka waran waxbarashada iyo tayada Djibouti waxbarashada iskoolo badan oo la dhisay Djibouti way jiraan jaamacad waa la dhisay iskoolo badan oo la dhisay wayna ka badan yihiin iskoolada intii hore markii hore aan sanadadii hore aad uga badan yihiin laakiin waxa dhibta quraatay jirta waa tayadii baana jirin tayo male iskooladii waxa taasi kaaga daliila ilmaha markuu dhiganayo waagii hore fasalada hoose ee iskoolka hoose markuu dhiganayo annaga markuu ilmaha waxa nidaam waxaan lahayn iskoolka ilmaha markuu gaaro fasalka shanaad uu dhiganayo inuu warqadiisa uu administration ka u diranayo inuu qoran karo ilmuhu talagu dadaalayo taabaad ilmuhu waa inuu qoran karo warqada uu meel u dirsanayo waa inuu gacantiisa ku qoran karo markuu fasalka shanaad ba socdo isagoo waxa markaa da'diisu annaga iskoolka waxa lagu gali jiray Djibouti 5 jir ilaa 6 jir baa lagu galay Djibouti qofku markuu 11 jir yahay waa inuu qoran karo warqada uu u dirsanayo maxay ahayd administrationka aan waqtiga baan soo gaaray markaas imika ilmihii oo jaamacad galaya dalkaysa ku sii socda wuxuu qorayana aad waxba oranaynin qofkan baa iskool soo dhigtay 12 sano ma oranaysid marka aragtay wuxuu qorayo qofkii ilmihii uu qorayo markaas tayadii baana jirin iskoolada waa la badiyay waa la dhisay aqal waa la taagay gidaarada way bateen ranjiga waa maxay kuwa bilic iyo kuwa foolxunba waa la taagay kuwa dhagaxii iyo kuwa qoriyaba waa la taagay laakiin se tayadii baana jirin wuxuuna tayaha haduuna lahayn meel ma gaaro ma dheeraadaan حسن ورئيسك سوق بجبيننا قيبتي سكواد قيبت لبعضنا مالين كلام جلي دورنا إن شاء الله بيد بالله الكريم قنتي جبدي يدردارن كي ما حد وجد إنها برشة الصومالية ده يجيبوت بقى برشة الصومالية وحن وجدين لها محايدة ورصومالية وحن ورن لها إسكندر في وقت واحد الجوجا هذه طالع محوها الدون كان يترتن وجرو لا ترتميو كبح بان ورن لها إسجي شذنير haddii la wada noolaan karayo oo Soomaali ama dawladda Soomaaliya ama meesha doontada Soomaaliya ay wada noolaan karaysan wada noolata ay wada noolaanayna ninka sida dawladdiisa samaysto taasi ceeb kuma jirto dhibna maaha khaladna maaha Soomaalidu waxa leeyahay tashada talo tala marka lagu leeyahayna kama dhigno muxuu ahaa shir weyn la qabtay war sideen roon alla isweydiyo ragii hore waxay oran jireen
war maxaa talo noo taala sideen noo roon halkeen marna waa la isweydiin jiray ma jirto iminka tii waa la boodaya un iyada waxba la isweydiin war talo ku noqdo oo sidii dhaqankeenu ahaa tashada alla tashado jabuutina waxaan ku dardaari lahaa dadka reer jabuutina isdiyaariya sababtoo ah waddankani uu qarxayaa haddii toole halkuu maanta taagan yahay dadkii jabuuti biyo la'aan dariiqaday xidheen shalay toole belbela xaafadda la dariiqaday xidheen biyo la'aan waxa weeyaan dadku inay isdiyaariyaan oo ay maxay ahayd xaafad isku diyaariyaan weyn haddii toole si ayna faraa uga bixin baashu maalintii qaraxda aad iyo aad u mahadsan tahay xasan sheer xareed aad iyo aad u mahadsan tahay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee dibad joogga ah jabuuti guul iyo farxad ayaan kuu rajaynayaa guddoomiye qaybta labaadna waraysiga mar kale ayaan u sheegi doonaa bulshada insha allah waad mahadsan tahay adna axmed ilaa waqaac cabdullaahi waad mahadsan tahay intaad noo maxay ahayd fursaddan aadna siisay waraysiga iyo mar labaad iyo insha allah aad iyo aad u mahadsan tahay walaalayaal aad iyo aad ugu mahadsan tihiin dhegaysigiina insha allah bismillahi kariim qaybta labaad ee waraysigana dib ayaan idinkaga soo sheegi doonaa taas oo aan u dhaadhici doono siyaasadaha arrimaha dibadda iyo gudaha ee jabuuti haddii allah awoodda sare leh uu raalli ka noqdo iyo ciidamada jabuuti ee ajnabiga ah ee sida faransiiska mase laga yaabaa in madaxweyne ismaaciil cumar geelle uu quwad kale oo saddexaad uu u yeerto arrimahaas ayaan ku falanqayn doonaa waraysiga kale ee soo socda aad iyo aad u mahadsantihiin waa axmed idaa waqaaca iyo xasan sheer xareed oo idin leh isma dhaafno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu